السلام عليكم داوديال هالكن وصادق صومالي اوفيشيال ومركله iyo muuqaal cusub soo ururiyeen anaasiir argagixisaha caalamiga Soomaali ahayn ayaa kamid ahaa maxaakim kuwan la diray Ahmed iidaale dhowrka kun oo lagu laayay oo dagaalka galay ajnabi u badan waxa record ugu jirana tiri genocide ama xasuuq ka badlay magaalada ma ku cilmiya genocide waxa la yiraahdaa ama massacre waxa la yiraahdaa dad inta meel lagu soo ururshay basiin lagu shubay ee la gubay ama rasaas lagu dilay ما يسوق هذيك صارت هي قال وحي مقدشة كذا على الدجالة وهي أدها عالمي قار ترى صحيح حسوق ما هي دجالة يا حي أنا أقول حسوق ما أمس لكن باركنا للسميين هي أدها عالمي أحسن أبينا هي أدها عالمي قوي يا وين هي شيء هي عالمي هاكر يا وين مرقاتي جاي أوبا هنتها مقدشة إن إذا ما دي توبيا أي الدقيان وقلنا بيئم كل دقيان ما حيت بيئم الغمض وحقيقنا laga raba adiga gabre wuxuu Soomaaliya ka geystay dambiye dagaal oo muhiim tahay in lagu maxkamadeeyo wuxuu gaan u ahaa kumanaan ciidamo Itoobiyaan oo sanadka 2006 soo galay dalka Soomaaliya 28 December 2006 taariikhda magaalada caasimadda Muqdisho markii ugu horeysay waxa gudaha u soo galay ciidamo Itoobiyaan kuwaas oo fadhiisin ka sameystay gudaha iyo daafaha magaalada caasimadda Muqdisho oo markaas ahayd magaalo saxmad iyo dad badan ayaa mar qura laga dareemay dhiilo calaamad taasoo laga soo horjeeday ciidamada xabashida 29 Maaj gabre wuxuu ciidamadiisa ku amray inay magaalada isku baahiyaan oo xoog ay isticmaalaan dagaalku xoogiisa ka dhacay agagaarka garoonka ciyaaraha ee Muqdisho wuxuuna ku faafay degmooyin dhowr ah oo ku yaala koonfurta magaalada caasimadda ee Muqdisho muddo 3 maalmood ah dagaal socday hay'adda Amnesty International warbixin ay soo saartay waxa ay ku qortay in ka badan 6,000 oo ruux inay dhinteen 600 oo kun oo qoysna ay ka barakaceen magaalada caasimadda Muqdisho gantaalada nooca loo yaqaan BM-ka ayaa guryaha dadka shacabka ay degan yihiin sida roobka loogu garaacay waxaana ciidamada uu hogaaminayay gabra duqeyn aan kala sooc lahayn ka geysteen Muqdisho waxa eedeymahaas report gareeyay hay'adda xuquuqul insaanka Human Rights Watch 2 Abriil xabad joojin muddo bil ah ku ekeed hay'adda bisha casiyada dhaqameed ayaa ka sameeyay goobihii lagu dagaalamay meed aruurin waxa la qoray in xaruur iyo haween guryahooda jooga toogasho lagu dilay dagaalka ayaa meesha ka qarxay waxaana halkaas dib uga sii bilowday xasuuqa shacabka iyo kufsiga haweenka Soomaaliyeed loo geysanayay dhacay dhacdooyin aan ka tirmeenin goobo ku yaala Muqdisho sidoo kale waxa joogto ahayd in maatada guryaha lagala baxo oo si koox ah loo daldalo marka laga soo tago xasuuq iyo tacaddi gabre uu ka geystay caasimadda geesta kale wuxuu furaa kula jiray siyaasadda dalka wuxuu horboodayay dawladda xilligaas uu madaxda ka ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Ahmed wuxuu gacan saar lahaa gabi ahaan kooxihii siyaasadda isaga soo horjeeday ee Soomaalida isagoo nusqaamiyay dib u siintii laga dhexwaday dawladihii dalka soo maray iyo waliba dhinacyada istiidanaa ciidanka Itoobiya oo dalka isaga baxay January 2009 gabra oo isaga haray marka wixii ka dambeeyay wuxuu saameyn siyaasadeed ku lahaa xukuumadihii dalka ka jiray waxa laga waayay saaxada siyaasadda ee shirarka Soomaalida wixii ka dambeeyay 8 bishii February 2017 markii la doortay dawladda hadda dalka ka talisa 25 June 2019 waxa laga eriyay gabra shaqadii urur goboleedka igad waa muhiim in gabra lagu la xisaabtamo xasuuqii uu ka geystay Soomaaliya taasoo ah mid qoran hay'adaha xuquuqul insaankana dukumiintiyo cad ay ka hayaan